بسم الله الرحمن الرحيم أرض قيمة بنالكم كالسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وحنوز السعودة مركا عشر كيني بدياتريقة ما أنتو حين قندونا مركا قيبت اللبعض مركا هيستوري تيكينك إن شاء الله وحين معلومة ورقصة هذلني حيرك جود أردق اللوغة باهي هاي بدياتريقة وريسي جيسا مركا وريسي عافمات كحوك قدوين قفك وين إيا هردعكو سابسا إن شاء الله ما أنتو مركا وحين قود قلدونا sida markaa qofka ilmihi yara wareysiga looga qaadayay way marka ugu horeyso waxaynu ka bilaabeynaa markaa history ama general ama personal data waxa loo yaqaan general data ama waxa loo yaqaan personal data ama personal history oo wareysiga qofka shakhsiga ah xogta laga buuxinayo marka ilmihi yara xogta laga buuxinayo qofka ama ilmaha yar waxa loo yaqaan personal data ay ugu horeysa marka ta koowaad personal data ama general data ama personal history ama demographic data waxa loo yaqaan okay ugu horeyntii patient's name waxaad qoraysaa markaasi ilmaha yar ama bukaha magaciisa oo saddexan ayaad qoraysaa marka xigta birth date ama age ilmaha yar waqtigu dhashay ama daadiisi ayaad qoraysaa markaa kawa soo qaad ku yiraahdo 2 sano iyo 2 bilood ama 2 sano iyo bil waxa weey waad qoraysaa markaa waxna ugu madarayso waxna kama jirays ilmaha yar daadiis waxa weey waa muhiim markaa tasdaxaad waxaad qoraysaa genderka ilmaha yar markaa ma laba mise dhidig markaa jinsiga ma laba mise dhidig marka qaarkood way isku qaldaman halkaas waxa laga yaabaa ilmaha yar inantii reyn suraali shar ay iska xiranto kaleeto in marka timihi iska xiirayeen oo kale waxyaalaha la midka be careful to use the correct gender waxaana aad uga taxadartaa inaad isticmaasho marka jinsiga ku haboon ee qofka marka lab ama dhidika u yahay residence qofkan halka marka laga keenay uu degan yahay marka ama xaafadii ama magaaladii ama tuuladii person given the history qofka ku siinayo warbixinta caafimaadka ilmaha yar qofka sida ay waraysiga ku siinayana waxaad weydiinaysaa relationship to patient xiriir marka ayada xiriir ka dhaxeeyo buka or passive reliability ama qofkan inta lagu kalsoonaan karay marka warbixinta ku siinay marka qofka yar waxaad qoraysaa warbixintan qofka ku siinay waxa xiriir ka dhaxeeyo marka ma hooyadiiba ma aabiiba ma eedadiiba ma adeerkiiba ma abtigiiba ayaad qoraysaa waxa kale oo ka tagayno iyadana muhiim ah date waqtiga date kan waxa weey waa muhiim date kan waxa weey waa muhiim waqtigiina waad qoraysaa marka date marka taariikhdiina waad qoraysaa marka age ka waxa kale ee xanuunada marka aan ku kala saarno hadii xagga physical diagnosis koreen ku noqono marka aan ku kala saarno qofku inuu qofka yar marka xanuunada age ka aad marka waa muhiim aad ku kala saara neemka magaca wuxuu ka caawinayaa qofkii marka iyadana magaciisa aad ugu yeeri karto oo bukiya ay waxaysiinaysaa marka iyada kalsooni dheeraad ah okay pediatrics streets from newborn event to adolescence pediatric waxa la yiraahdo wuxuu fidsan yahay waa laga soo bilaa ilmaha yar markuu dhashay ilaa iyo adolescence markuu uu yahay carruurta roon marka ama uu naqaan teenagers marka 18 sano ilaa ilmaha marka uu saa u dhashay bugta qaar way laga yaabaa iyagoo growth ka qofka ku marka iyada ku xiray inay yiraahdaan 22 marba intuu qofka ka istaagay koritaankiisa whenever you consider a pediatric problem markasta oo dib u eegayso pediatric problem dhibaatada carruurta markaas whether medical ama ha noqoto aday doonto xaalad caafimaad ama developmental xaalad ka haysta xagga ilmaha koritaankii markaas ama behavioralka ama xagga dabeecadiisa tay doonto ha haatee first ask marka ugu horeyso waxaad weydiisaa what is the child's age waxa marka ilmaha yar daadiisa waxay tahay markaas ilmaha daadiisa ayaad weydiinaysaa marka aad dib u eegis ku sameynaysa ama xaaladda ilmaha yar caafimaadkiisa aad qiimeynaysa xaalad caafimaad ha noqoto xaalad xagga ka timaad ma developmentalki ilmihi yar inuu marka ayada xagga koritaankiisa tahay inuu fadhiga ku raagay inuu ilmihi yar wax loo yaqaan socodka ama uu ka raagay ama ilmihi yar xaggii kaga timaada marka maskaxda dhibaato waxa doonta haato dil marka wax kasta oo dilay ku keeno ama xagga behaviorka ilmihi yar xaggii dabeecadii hab dhaqankii waxyaalihii dhan ha noqoto tay doonta haatee markasta waxaad weydiisaa wax ugu horeeya waxa weey
da'da ilmaha yar markaa da'da ilmaha yar ayaa very important inaa weydiisa da'diisa. Okay, qodob koowaad in ka soo hadalna waxaa weeye personal history ama personal data wuxuu naqaan oo taas ah warbixinta qofka shakhsiga ilmaha yar la taxalluq. Ta labaad waa maxay? Chief complaint ayuu naqaanaa chief complaint ama presenting complaint waleera waa waxa ugu weyn ee qofka uu ka cabanay waxa ilmaha yar guriga loogu hin waaye ee loogu soo qaaday dhakhtar maxayd ma matagba ilmihi yara maxamadba waxaan keentay in ilmihi yara dhakhtar loo geeyo culayska inta la eg ayaa muxuu yahay daba taas waxaan naqanaa chief complaint ama presenting complaint waa waxa weyn oo qofku ka cabanay taasoo keentay in dhakhtar loo geeyo. In the patients or informative words had ay jirto warbixintaasna waxay ka timaadaa qofka bukaha ayaynu ka helnaa marka warbixintaas oo ereyada isaga noo sheeg warbixintaas isaga nala wadaagay. Chief complaint-iga waa description waxa lagu qeexaa of the presenting complaint cabashadan taagan in a chronological order marka la qorayo hab waxa loo qoraa la soo kala horreysiinayo si u soo kala horreeyay qofku wuxuu wada yeeshay xumad iyo wax loo yaqaan iyo matag ama shuban iyo matag keeda soo horreeyay waxa soo horreeyay wax loo yaqaano shubanka soo horreeyay imiso ha 3 cisho kaasaan hor qorina mataga muxuu ahaa 2 cisho weyn ku xijinayna chronological order waxay habka u soo kala horreeyay shubanka soo horreeyay 3 cisho ha mataga ku xiga 2 cisho ha xumada ku xigto maanta bay ahayd marka hab saas ah ee loo soo kala horreeyay. Chief complaint waxaan ku qeexi karnaa waa brief statement oo hadal yar oo kooban of primarily problem oo dhibaatada koowaad that caused sababtay family marka qoyska to seek inay raadaan medical attention in qofka ay la qabtaan goob caafimaad waa waxa ku kalifay marka ayade. Chief complaint waxa la yiraahdaa waa hadal yar oo kooban kaasoo ugu horeyntii waxa weeye dhibaatadii taasoo sababtay qoyska ilmihiira inay guriga ku hayn wayn kadibna ay la soo qabtaan goob caafimaad si ilmihiira loo gurmado markaa. It is important waxa muhiim ah to establish the duration of each complaint cabasho kasta waqtigeeda markaa muddada ay ilmihiira haysay duration wa complaint-iga cabashada FIFA for 2 days diarrhea for 1 day vomiting for the last 6 hours marka mid walba waxa la raacinaya muddada ay qofkan ay haysay muddadii ayaa la raacinaya iyagoo la had jeer loo eegay si u kala horreyn haddeen wada joogno sawiradan ku qori lahayn way fahmi lahayn insha Allah markaynu isku soo noqono waynu meelaha aan u baahanay inaan iftiimino waynu iftiimin doonaa. Okay, history of the present illness HPI baa loo yaqaana waxaan hadda la fagurid ama falanqeyn ku sameynaynaa chief complaint cabashooyinka weynaa markaa cabashooyinkii waa weynaa hadda diarrhea analyze gareynayna bain hadduu ilmeera kaariska anaga haddii feefa xumada hadda si analyze gareynayna inaan kuwa chief complaint-igii ay hadda sii faahfaahino si u iftiimino mid kasta markaa. Okay, history of presenting illness this is the most important part of history tani waa qaybta ugu muhiimsan xagga wareysiga markaan ka hadlayna this is tani waa the most important part qaybta ugu muhiimsan of history markaan ka qaadayna. Details of the chief complaint are expanded waxaan si qoto dheer u sii la fogareynaa u sii tixraacinaa si faahfaahinaa si balaarinaa chief complaint-igi oo ah way halkee what waa maxay when waa goorma how waa sidee directed at the chief complaints waxaan si toos ugu wajeynaa chief complaint xumadan maxay ahayd goormay ku qabatay xagee bay ka qabatay sidee ku qabatay intay ku haysay waxyaalo noocaas. Okay, when was the patient last entirely well when goorma was the patient bukaha last markaas ugu dambeyntii entirely well u gabi ahaanba fiicnaa ilmaha yar goormee caafimaad ugu dambeysay goormee caafimaad ahaanba ugu dambeysay. Okay, duration of disease muddada uu haya xanuunkan ama cudurkan onset marka sida ugu bilowday severity qatartiisa aggravating maxaa uga sii dara maxaa xanuunka ilmihiira uga sii dara ku sii xumeeya alleviating factors maxaa ka jabiyo muxuu relief ku dareemaa muxuu ku wanaagsanaada. Associated symptoms calaamadaha la xidhiidho maxay yihiin ama la socda associated symptoms cabashooyin kaleeto ilmaha yar u dareemayo la socda ma jiraan. If there is more than one complaint hadday tahay hal cabasho ka badan ask waxa weydiisaa which complaint first came hadday laba cabasho ka badan ay tahay
oo ay tahay wax loo yaqaan shuban iyo matag u yihiin aski waxa weydiisaa which keeba complaint cabashada came first keeba soo horreeyay cabashadan ma mataga ilmaha ku soo horreeyay mise shubankii ku soo horreeyay weydiinaysaa which was the next keeba xigay keeba marka iyadoo maxay xigay and final keeba ugu dambeeyay haddii ilmihii yaraa wada lahaa shuban iyo matag iyo xumad waxaad weydiinaysaa keeba soo horreeyay keeba ku xigay keeba hadda ugu dambeeyay okay which came last okay you should then present this complaint in order to beginning you should marka waxa waajib ku then present this complaint in calaamadaha u muujiso in order beginning with one that comes first si usoo kala horreeyay midba midka ku xigay always had jeer start by waxaad ku bilowdaa open question su'aal furan had jeer markuu bukaha ku yimaado marka lagu keeno ilmihi yaraa hooyada ay ku keento waxaad ku furataa markaasi su'aal furan marka su'aashii weydiiso leave iskaga tag marka qofka sheekada wada ilmaha yar sidee marka loo hayaa ilmaha yar sidee baa loo hayaa muxuu ka cabanayaa waa su'aal furan kadib iska aamus ha wada hooyada kaaga sheekaysaa ku wada okay closed question is ama hodho marka dambe markay tahay ay ku dhamaato chief complainting marka aad kala baxdo presenting complaint marka ku jirto waxa hadda gali karta closed question su'aal xiran ama leading questions سؤال حرن كان أم سؤال leading question ولا يقان هو جامينه ها يا مايا الماء حامله ها سدا كلا كورن ها يا مايا أحمرك questions till the end of complete data إلا أنت حقت أتكلم استرنس لبعض أسقاب أي سؤاله لو يديه review other systems وحد بيجلس قصة مسته system هذا كلاته الميراث سبب كلو كانوا كعبني وحد اكتمل كيده حلو يقانه قيبي كله habdhiskii hawo-mareenadii baa lagu keenay caloosha eeg wadnihii eeg keliyihii eeg maqaarka eeg guud ahaan markaa sistemada kaleeto waa maxay sababta markaa sistemada kale aad u eegayso support a diagnosis waxay kaa taageeri kartaa kaa caawin kartaa inaad xanuunka garato or exclude a diagnosis ama waxay kaa saari kartaa xanuun qofka marka hore aga shaki qabtay ayay kaa saari kartaa assess waxaad ku qiimeyn kartaa severity of disorder khatarta uu xanuunkan markaa uu leeyahay ilmaha yar inta uu gaarsiisay marka saddex xaje systemska kaleetood eegaysa waxay kaa caawinayaan kow inay xogtii aad heshay ay kaa taageerto oo xanuunkii uu meel kugu sii hogaamiyo ama in aad iska saarto waxaad ilmaha yar oga shaki qabtay inuu hadda kaa baxo ilmaha yar baad aragtay uu matagaya uu qufacaya uuna shubmaya waxaa laga yaabaa xilliyada qaar shubankaasi oo kaleeto in aad istiraahdo ilmihii dhaariya baahay laakiin se xaggan inay off ka noqoto naqaska ilmaha hayay waxay adjust banki waxyaalo badan oo kaleeto in ay hidho ka caawiso okay negative information should be include if contributed to markaa diagnosis markaa informationada oo xun oo kale ama informationada akhbaaraadka kale aan waxba markaa xagga mayada oo kale waxyaalahaas la midka oo kale ama information ama loo baahnayn oo xilliyada qaar way ku caawin karayaan haddii waad isticmaali kartaa si ay haddii kaa caawinayaan xagga diagnoska haddii kalena iska saar okay stepka saddexaad ayaan soo gelaynaa waxaan u naqaanaa past medical history xagga ciyaalka markaan joogno waxaan dib u eegis ku sameynaynaa ilmihii yaraa marka xanuunadii hore oo uu qabay ama uu lahaa inaan dib u eegno caafimaadkiisa hore inaan eegno marka iyada laga soo bilaabo details of birth inaan si qoto dheer information ama warbixin oga helno sidii ilmihii yaraa marka dhalashadiisi oo ah marka uurka uu ku jiro hooyada xanuunada waxyaalo noocaas ku dhacay marka uu dhalanay xilliga foosha waxyaalo dhaawacay waxyaalo noocaas soo gaaray iyo marka uu dhashay kadib feeding xagga ilmaha yaraa quudintiisii baan eeganaa cunadii goorta loo bilaabay waxyaalaha la siin jiray marka wixii developmentalka ilmaha yaraa koritaankiisii vaccination xagga talaalka are also a part of the history marka kuwan qaybahani waxaan ku darsanaa xagga ciyaalka markaan joogna past history baan ku darsan karnaa way caawin karaan in addition ta waxaa dheer inquire waxa weydiisaa about all significant illness in the past xanuunada dhammaan xanuunada marka ku muhiimka hore ugu dhacay oo kale ilmaha yaraa adigoo weydiinaya qaas ahaan dhaari ilmaha hore ma u shubma respiratory infections caabuqyo xagga marka hawo-mareenka kale ma ku dhacay fever ilmaha yaraa xumad inuu hore u yeeshay fits ilmaha hore inuu gariiray jaundice inay ilmaha yaraa hore u cagaarshow u yeeshay etc iyo waxyaalihii la midka ah marka laba qaybood ba isku jirta xanuuno ilmaha yaraa hore ugu dhacay iyo mid ah waxa loo yaqaan ilmihii dhalashadiisa quudintiisa koritaankiisa talaaladiisa
okay then ku bilana past history antenatal key ayay marka ku bilaabeena xilligii hooyada uurka lahayd inquire waxa weydiisaa about health of the mother during pregnancy caafimaadka hooyada xilliga ay uurka lahayd ayaan weydiinina ask about history waxaan weydiin doonaa diabetic mellitus hooyada xilli uurka lahayd macaan ay yeelatay ama lahayd hypertension ay dhiikar lahayd swelling of the feet in cagaha barari jireen feet hooyada inay gariiri jirtay ama convulsion wax loo yaqaano infections in hooyada xaabqay lahayd sida wax loo yaqaano tuberculosis qaaxada ama rubellada oo kaleeto wax loo yaqaan drugs inta hooyada xilliga dawooyin ay qaadan jirtay dawooyinka ay qaadan jirtay xaddiga ay ka qaadan jirtay marka dooski duration muddada ay qaadan jirtay ayaa time-ka iyo waqtigaba x-rays in hooyada hore computer ama raajo loo saaray xilliga uurka lahayd baan hooyadii aan weydiin doonaa iyo waliba hooyada xilligaas in malnutrition waxa la nafaqa darro ay soo wajaheen iyo xal natal xilligii ilmaha marka uu dhalanayay ask about the duration of gestation hooyada ilmaha yar intay uurka ku siday place of delivery halka ay ku dhashay markaasi ma hospital ba guriga mise at home marka ma hospitalki waa marka goob caafimaad mise waa at home gurigi who carried out marka yaa ka umuliyay markaasi cidi fulisay duration of labor waxa halkaas weydiinaysa hooyada muddada ay foolanaysay waxyaalo badan bay halka ka caawin doontaa duration of laborka ayay ka caawin doontaa mood of delivery hooyada qaabka u dhashay spontaneous inay ahayd oo marka iskaga dhashay marka foosha iskaga bilaabatay in la caawiyo in CS marka qalin loo sameeyo complication during delivery xilliga dhibaatooyin ku yimid xag marka ayada wax loo yaqaan marka dhibaatooyin ama carqalada ku yimid xag ilmihii markuu dhalanayay newborn ilmihii raman weydiinayna wax loo yaqaan first cry gormu ooyay immediately or delay isla markii mise uu habsaamay time of onset of respiration goortu neefsiga bilaaba after delivery markuu dhashay kadib ma 5 delay of 5 minutes muu yar habsaamay markaas mise mo hadii uu 5 minutes iyo in ka badan ay tahay ku tilmaamaysa ama ku muujinaysa birth asphyxia ilmihii neef qabatooda xagga ah marka ayada markuu dhalanay any restriction given waxa caawimaad loo sameeyay marka oxygen lagu xiro waxa la noocaas birth weight ilmaha miisaanka ku dhashay birth injury dhaawac inuu ilmihii raa oo soo gaaray feeding difficult in neonatal period in ilmihii raa quudinta ay ku adkaatay xilligii uu ku jiray marka 20 cisho ugu horeeyay ilmihii jaundice uu yeesho cagaarshow cyanosis inuu marka uu yeesho blue inuu noqdo ama pale oo taasoo ku tilmaamaysa oxygen la'aan feet ilmihii inuu gariiray feverna xumad uu yeeshay and any other symptoms during neonatal period 20 cisho ilmihii ugu horeeyay wax calaamado ah oo muuqdo oo uu yeeshay feeding history ma weydiina it's a particular significance waxay muhiim tahay in children carruurta less than 2 years labada sano carruurta ka yar ay aad muhiim ugu tahay those suffering from kaasoo ka cabanaya markaasi anemia ay hore ugu dhacday ama soo asiibtay dhiig la'aan malnutrition nafaqa darrada iyo other nutritional disorders xaaladaha kale oo la xiriira nafaqa darrada time between the birth and first feeding ilmaha muddadii u dhaxaysay markuu dhashay ilaa quudinta ugu horeysay xilliga la siiyay ayaad weydiinaysaa type of feeding nooca quudinta la sameeyay breastfeeding baa naaska la siiyay mise formula feeding baa la siiyay marka ayada ama waxa la siiyay wax loo yaqaan formula feeding ka caano marka caanahaasi ay siin marka ay ku siin wax loo yaqaan aan ahayn caani naaska marka quraarada waxa la midka ee type of milk caana la siin nooc waxa marka mariyaan geel baa ma caana leedo waa wax nooc u yahay marka formulada frequency of feeding marka inta goor ilmaha yar marka la quudiyo quantity xaddiga la siiyo dilution of bottle feeding iyo marka sida loo milo oo kale caanihi ma biyo baa caanihi marka halka muhiim inta goor maalinta la siiyo 4 goor 5 goor xaddiga la siiyo iyo caanaha biyaha inta lagu daro inta la eegin progress in feeding during first month of life ilmaha sida marka usoo hormaray usoo koriyo cunada uu qaadanaya bishii ugu horeysay age at which solids was started daada loogu bilaabo cunada adag and their nature iyo cunada asal ahaanteeda maxay tahay amount xad intee la eg baa la siin jiray iyo frequency imse goor baa la siin jiray maalintii current feeding practice before present illness hadda muddadan la joogo intuusan xanuunsan ka hore maxaa la siinayay cunooyinka la siinayay sababtoo waxay inagana caanihi laga bedelo cunooyinka laga bedelo xanuun ay keeneen any change in food intake during illness wax bedel meel lagu sameeyay cunooyinka uu qaadanaya intii muddadu ilmo yaraa uu xanuunsado oo kale hooyadana ku tiraado waxaasan siin jiray waan ka daayay ka maansiiyay waxyaalo la mid ah immunization history talaalka ay weydiinayna check the vaccination card if available otherwise ask about hadii kaarka talaalka hooyada sidata eeg hadii kalena weydi visit vaccination center in hooyada booqato xaruntii talaalka type of vaccination nooca talaalka la siiyay when goorma and given
by whom goorta la siiyey iyo waxa loo yaqaan cidda siisay complete or incomplete talaalka dhameystay inuusan dhameysan iyo boosterska talaalka in markaa iyada loo kordhiyay oo talaalada qaar waxaa noqon booster taasoo difaac lagu sii caawinay developmental history ilmihii raa weydiinayna mother should be asked when did the child fast hooyada waxaan weydiina goorma ilmihii raa dhool cadeeyay hold his neck ilmihii raa qorti goorma kor soo qabtay roll over ilmihii raa kale goorma qorti uu wareejiyay start responding to the voice goorma codkan ka jawaab bilaabay sit up with support or without support ilmihii raa goorma soo fariis isagoo la caawinaya ama aan isagoo la caawinayn uu fadhiga uu bilaabay waa inaga yar wax ku yar dhexdmi karto wax noocaas lagu caawiyo ku fadhi barto marka dambe iskiisaga iskaga fariistay start to walk with or without support goorma socodka bilaabay iyadoo la caawinaya marka dambe goorma kaligiis ka socdo talk waxaan eegi doonaa wax loo yaqaan goorma hadlay single word iyo sentence hal eray ilaa jumlad run goorma carray start feeding with hands goorma bilaabay inuu gacmihiisa wax ku cuno indicate toilet needs goorma bilaabay inuu suuli u baahan yahay became dry by day or night goortu ilmihii raa isqalaajiyo suuliyada wax gala family history ayaad weydiinaysaa ask about the following waxaad weydiinaysaa age of the mother and father da-da waxaad weydiinaysaa hooyadii aabihii parents health caafimaadka weydiinaysaa waalidka hadda iyo ka horaba siblings walaaladii da-dooda iyo nooc markaa jinsiyadda waxay kala yihiin xanuunada ku dhacay any death wax dhimashana ku timid oo markaa cause of now haddii xanuunka la garanay goorta uu markaa xanuunka u dhintay iyo xilliga uu dhintayba still birth in wax dhacaysa uu jiro ama miscarriage ayaynu weydiinayna xagga waalidka markaa grandparents healthy waxaan weydiinayna markaa awoodii ayeydii markaa caafimaadkooda particularly if living with the family haddii qoyska ay la nool yihiin if an inherited disorder haddii xanuun la kala dhexlo kale uu jiro suspected looga shakiyo obtain information about health of uncles warbixinta bal waxaa ka qaada xagga abtigii iyo adeerkii aunties eedadii iyo habreertii aan diyaar jilra carruurtooda consequentity ayaad weydiinaysaa blood relation between them consequent waxaa ilma abti ilma adeer labadan qof isku qabaa ma ilma abti waa mise ilma adeer blood relation between the parents inay xiriir ay leeyahay xagga dhiigga oo marka isguursiga family qoyska kale marka ilma abtiga ilma adeerka kale xanuun hereditary recessive ahaa qarsoona ayaa hadda soo bixi karaya social history weydiin doonaa find out waxaa parents education aqoontii waalidkii and occupation waxay ka shaqeeyaan family income ka dhaqaalaha soo gala personal living in the house inta qof gurigan ku nool personal history ilmihii raabaan weydiin doonaa warbixintan ka qaadi doonaa qusayso inquire about waxaan particular habits of the child caadooyinka uu ilmaha yar leeyahay details of the class si qotareer waxbarashadiisa iskuulkiisa interest in studies waxbarashada inuu xiiseeyo behavior dabeecada of the child ilmaha yar at school marka iskuulka la joogo and relation with other children xiriirka ciyaarta marka carruurka marka ilmaha carruurta kale uu leeyahay inuu ilmaha yar qalqaali iyo waxyaalo noocaas u yahay environmental ayaan weydiinaynaa marka history inquire about waxa weydiisa site of the house guriga intuu la eg yahay inta qole ku jira ma baloodba inta qof member of occupants inta qof degan marka wax loo yaqaano tiradooda cleanliness nadaafadii general hygiene nadaafada guud condition marka xaaladooda guud weydiin source of drinking water biyaha meesha ay ka cabaan a doctor's asked su'aashana ugu dambayso aan cashirkan kaga bixi doonaa insha Allah waxaad su'aashana ka soo jawaabi doontaa a doctor's asked to see dhakhtar ayaa wuxuu markaa laga codsaday inuu eego ilmo yar 9 jir ah child in hospital outpatient department marka qaybtii outpatient soo fadhiya loo keenay kadib he ignores wax iska nitay the child ilmihii an ask her mother what happiness what the problem is hooyadii marka ilmihii uu iskeen hooyadii wuxuu weydiiyay ilmaha muxuu ka cabanaya she give him the referral letter warqad bay u dhiibtay she doesn't need to read umay baahneen marka iyada waxa muusan akhrin before he given the history it was seen he has already started examination buu markii iska bilaabay the child is not waiting ilmihi muu miisaan he tells her the child has rheumatic fever ilmihi inuu leeyahay wadna xanuun buu u sheegay and should stay in bed when certain jooga dawadan prescription ka uu qaataa 3 cisho uu liqaa marka 3 waqti uu liqaa then he rush out uu iska degdegay without further explanation waxa uu sharxay what makes did the child doctor make qaladka uu sameeyay ayaa la iska doonaya marka insha Allah عشرة حينتين كل مدونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي قمة بهون السلامة ويرد الدجيج أنا جوا مركا هول دق يقصو كردي أن يرى بيشنا نيجي أودت إن شاء الله بداية الريستورت هو very important ومهم سي practical أيام أسمين دونا ورئيس أرضي الحوانس أيام كوقعة دونا إن شاء الله وحقرون يسودين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته